السلام عليكم ورحمة الله. qaybta koowaad oo aan uga hadlayo khilaafka badda Soomaaliya iyo wadamada sheeganaya ayaa waxaan ku soo qaadan doonaa xadbadeedkii ay Soomaaliya sheegan jirtay wixii ka dambeeyay 1972 iyo sidii Mareykanku uu uga horyimay arrintaas iyo waliba dokumentiyo ay dawlado ajnabi ah ka caawiyeen Soomaaliya oo loo gudbiyay qaramada midoobay oo aan ku arkay arrimo yaab badan iyo heshiiskii muranka dhaliyay ee Soomaaliya iyo Kenya. balse marka hore markaad ogaatid in dhulkaan aan ku noolnahay boqolkiiba 17 ay biyo ku fadhiyaan ayaa waxa la isdhihi karaa maxaa dhul loogu bixiyay waxaba ku haboonayd in biyoole loo bixiyo. dawladaha badda lehna waxay ka faa'iidaan in xadka dawladdaasi leedahay uu ballaarto. su'aal haddii lagu weydiiyo ma badda Soomaaliya ayaa weyn mise bariga, jawaabta saxda ah waxa weeye waxa weyn badda Soomaaliya ay leedahay oo ka weyn bariga. oo baddaasi cabirkeedu waxa uu dhan yahay 800,000 oo kiiloomitir isku wareega wax ka badan. waxa Afrika oo dhan naga badweyn 4 dawladood oo kaliya. sababta ay nooga badweynaadeen ayaa ah inay leeyihiin jasiirado fara badan. haddaad jasiirad xeebtaada ka fog leedahay baddaadu aad ayay u weynaanaysaa oo jasiiradda 4 jiho biyaha badda ayaa ka xiga. waa waxa keenay in jasiiradaha Seychelles, Mauritius iyo Madagascar ay naga horeeyaan, halka South Africana ay leedahay jasiirad aad uga fog oo waddankaas ku soo dartay xadbadeed aad u weyn. jasiiraddaas oo la dhaho Prince Edward ayaa u jirta waddankaas 1769 kiiloomitir. arrintaas oo kale ayaa waxa ay Faransiiska ka dhigtay waddanka ugu badda weyn adduunka, isagoo aad uga dhul yar Mareykanka ayuu haddana ka badweyn yahay. sababtoo ah jasiirado aad u fara badan oo ku kala yaacsan dacallada adduunka ayuu iska leeyahay Faransiisku. markaan u soo gudbo badda Soomaaliya iyo khilaafaadka dawlado kale ay geliyaan ayaa waxa marka hore aan ka hadlin ereybixinno xiriir la leh badaha. marka laga hadlayo ereybixinadaas ayaa waxaa ka mid ah territorial sea ama dhulbadeedka. waa qayb ka mid ah badda oo hanti uu u leeyahay dalka xeebtaas iska leh, taas oo la mid ah dhulka bariga ee waddankaasi iska leeyahay. waa aag aysan soo geli karin maraakiibta dagaalka ee dawladaha kale iyagoo aan ogolaansho ka haysan dalka xeebtaas iska leh. dhulbadeedkan ayaa waxay dawladuhu u aqoonsadeen inuu yahay biyaha badda ee bariga u jira ilaa 12 mayl badeed. markii intaas la dhaafo ayaa waxaa la gelayaa exclusive economic zone ama aaga dhaqaalaha gaarka ah oo loo soo gaabiyo EEZ. badda noocan ah ayaa dalku dhaqaale ahaan mas'uul ka yahay oo kheyraadka ku jira ka faa'iideysan kara, laakiin waxa uu uga duwan yahay territorial sea-ga in dalka xeebta leh uusan u diidi karin maraakiibta halkaas maraysa. waa aag aad kheyraadkiisa adiga kaliya aad kala bixi kartid, laakiin maraakiibta xataa kuwa dagaalka uma diidi kadhid inay maraan. wixii intaas ka sii shisheeyana waxaa loo yaqaan continental shelf ama qalfoof badeedka. waxaa sidaa u kala dhigay xeer ay dejisay qaramada midoobay oo ay saxiixeen dawlado badan oo ay Soomaaliya ku jirto dabayaaqadii dawladdii Siyaad Barre. balse intaysan Soomaaliya saxiixin xeerkaas ayaa waxaa jiray xeer la saxiixay sanadii 1972 oo dhigayay in dhulbadeedka ama territorial water ee waddanka Soomaaliya iska leeyahay uu yahay 200 oo mayl badeed ee uusan ahayn sida hadda dawlado badan ku dhaqmaan 12 mayl badeed. waxaa arrintan kala mid ahayn dawlado ay ka mid tahay Peru oo xeerkaasi waxa uu dhigayay in 200 oo mayl badeed ay Soomaaliya iska leedahay oo aan loo ogolayn in maraakiib ciidamo ay soo galaan iyagoo aan ogolaansho haysan. laakiin Mareykanka ayaa waxa uu sameeyaa in dawladaha xadbadeedka ballaaran sheegta uu ciidamo u soo diro si ay baddaasi u maraan. Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in cabasho ku saabsan badda Soomaaliya ay sheeganayso uu soo diray sanadihii 1982 iyo 1986, isagoo Mareykanku ku qoray bog ay ciidamada badda Mareykanku leeyihiin oo soo qora howlgallada noocan ah meelaha uu Mareykanku ka sameeyo. waxaa lagu sheegay page-kaas in Mareykanku ciidamo u soo diray badda Soomaaliya ay sheeganayso sanadihii 1979 ilaa 1983, iyadoo howlgallo kalena la bilaabay 1985 ilaa 1989. Soomaaliya kaliya ma ahaane meelaha uu Mareykanku sidaas ka sameeyay ee waxa ka mid ahayd Peru iyo Liibiya. sanadii 1981 ayaa ciidamada Mareykanku u soo diray badda Liibiya ay sheeganaysay waxaa ka dhacay iska horimaad sababay in Mareykanku soo rido 2 diyaaradood oo waddankaasi iska lahaa. ilaa maanta Mareykanku waxa uu sameeyaa arrintan oo kale oo Shiinaha meelo uu sheeganayo ayaa sanad walba ciidamada Mareykanku maraakiibtooda loo diraa si ay u maraan oo aysan tixgelin u siin sheegashada Shiinaha. laakiin sanadii 1989 Soomaaliya ayaa saxiixday heshiiskii xeerka badda ee qaramada midoobay ee dhigayay in dhulbadeedka khaaska ah uu yahay 12 mayl badeed.
200 mayl badeed ee ku xigtana khayraadka ku jira aad leedahay laakiin aadan u diidi karin cidda maraysa. Heshiiskaas uu saxiixay Maxamed Siyaad Barre bishii Febraayo 1989 baarlamaankii Soomaaliya ayaa isla heshiiskaasna saxiixay laakiin lama hayo qoraalkeedii. Haddaba muddo yar kadib ayaa dawladdii Siyaad Barre dhacday. Waddanku wuxuu galay dagaalkii sokeeye. Xilliyo dambe ayaa marka waxaa soo baxay dawlado sheeganaya dhulbadeedka Soomaaliya. Sababaha soo shacbixiyay ayaa waxa ka mid ahaa in qaramada midoobay ay rabtay in dokumentiyo badda la xiriira loo soo gudbiyo. Dawladihii saxiixay xeerbadeedka qaramada midoobay oo Kenya iyo Soomaaliya ay ka mid yihiin ayaa waxa laga rabay inay soo gudbiyaan qolfoof badeedka ay sheeganayaan ugu dambeyn 2009. Haddaba xilligaas waxa dawladdii ku meel gaarka ahayd laga rabay inay shuruudahaasi buuxiso. Norway ayaa marka waxa ay u soo bandhigtay dawladdii ku meel gaarka ahayd inay ka caawinayso Soomaaliya gudbinta qolfoof badeedka. Norway ayaa marka waxa ay ka rabtay Soomaaliya maadaama ay ka caawinayso dokumentiyada laga rabay inay qaramada midoobay u gudbiso ayaa waxa ay ka rabtay inay heshiis la gasho Kenya oo aysan iska soo horjeesan oo dawlad walba gaarkeed u gudbiso dokumentiyadii laga rabay. Inkastoo labada dal waxyaalaha ay gudbinayeen oo mid walba sheeganayo dhulbadeed isa soo dhexgalaya. Haddaba Abriil 7 2009 ayaa waxa ka dhacay caasimadda dalka Kenya ee Nairobi heshiis lagu magacaabay isfahan dhanka xuduudaha badda Soomaaliya iyo Kenya. Heshiiskan ayaa waxa saxiixay wasiirkii qorsheynta ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo wasiirka arrimaha dibadda Kenya Moses Wetangula. Waxaana ku jirta in labada dawladood oo mid walba dokumentiyadiisa gudbiyo isagoo aan mucaaradayn kan kale, iyadoo lagu qoray in muran badeed ka dhaxeeyo labada dawladood. Waxaa kaloo lagu sheegay isfahamkaas in labada dal ay ka heshiin doonaan muranka xeebta ee ka dhaxeeya iyadoo la raacayo xeerarka caalamiga ah. Haddaba markii uu soo shacbaxay in dawladdii ku meel gaarka ahayd ay saxiixday isfahamkaas ayaa Soomaali badan ka kaceen oo waxa uu u ekaaday in dawladda ay Kenya u ogolaatay inay muran geliso baddeena. Ilaa markii dambe baarlamaankii ku meel gaarka ah uu burburiyay heshiiskaas. Laakiin maxkamadda qaadaysa dacwadda Kenya ee Soomaaliya ayaa waxay caddaysay in heshiiskaasi yahay mid sax ah. Nasiib wanaagse maxkamadda cadaaladda ee qaramada midoobay ayaa go'aan ku gaartay inay dhageysan karto dacwadda ku saabsan muranka badda ee u dhaxeeya labada wadan. Arrintaas oo Kenya ay diidaysay iyadoo u codsanaysay heshiiskaas ama is-afgaradkaas. Laakiin waxa isweydiin mudan maxaa ku khasbay dawladdii xilligaas jirtay inay heshiiskaas aan macnaha lahayn gasho, maadaama ay dhici kartay in iyadoon heshiis la galin Kenya u gudbin kartay dokumentiyada laga rabay qaramada midoobay. Sababtu waxay ahayd Norway ayaa dabada ka riixaysay in heshiis la galo iyadoo iska dhigaysay inay ka cararayso isqabqabsi iyada faraha la gala. Maadaama ay dokumentiyada Soomaaliya ka caawinaysay, Norway ayaa iyadu waxa ay iska dhigaysay inay dhexdhexaad ka tahay muranka ka dhaxeeya labada dawladood. Arrintaas oo ka muuqatay xitaa dokumentiyadii ay dawladda ka caawisay. Tusaale ahaan markaad fiirisid dokumentiga ay gudbisay dawladda Soomaaliya oo Norway ay la diyaarisay, waxa ku jira sawir muujinaya inta ay Soomaaliya sheeganayso iyo inta ay Kenya ku haysato. Weligaa ma aragtay dawlad la yiri waxaad soo gudbisaa badda aad sheeganaysid oo dokumentiga ku soo dartay intaan ayaan anigu sheeganayaa laakiin dawlad kale ayaa igu haysata oo iyaduna intaan ila sheeganaysa. Haddaad markaa dawlad kale aad tiraahdo ii qor dokumentiyadayda, dawladdaasi danahaaga kama shaqaynayso oo waxa ay isku dayaysaa inay iska dhigto dhexdhexaad halka aad adiguna u baahnayd wax xaqaaga u dooda oo ka tarjuma waxa aad doonaysay. Markaad fiirisid dokumentiga ay Kenya gudbisay ayaa waxaad arkaysaa farqiga u dhaxeeya kan Soomaalida iyo kooda. Kenya ayaa sidaan u dhigtay marka ay ka hadlaysay xadbadeedka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. Xeer la dhaho Maritime Zone Act oo 1989 la meel mariyay ayaa waxa uu dhigayay in xadbadeedka Exclusive Economic Zone ama aaga dhaqaalaha gaarka ah ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya in lagu xadeeyo jariidada rasmiga ah iyadoo la raacayo heshiis dhexmara labada wadan kaasoo u hoggaansan xeerarka caalamiga ah. Waxa ay kaloo Kenya intaasi sii raacisay in 2009 ay kala saxiixdeen labada dawladood is-afgarad ahaa in dawlad walba gudbiso dokumentiyadii laga rabay iyagoo aan ismucaaradayn. Khariidada ay soo sawireen kuma jirin waxa ay Soomaaliya sheeganayso oo waxa ay Kenya soo sawiratay khariidada badda ay sheeganaysay kaliya. Haddaba waa in dawladda Soomaaliya ay ku cibro qaadataa arrimahan oo kale oo dokumentiyada iyo heshiisyada la galayo ay la kaashataa khubaro Soomaaliyeed oo aqoon leh. Qaybta labaad ayaa waxaan ku soo qaadan doonaa sidee ayay maxkamadda dacwadda badda haysa wax u xukumi doontaa. Ma dhici kartaa in Kenya loo xukumo badda qaybteed iyo weliba waddanka Yemen oo isna khilaaf xagga badda ah nagala dhaxeeyo.
intaas ayaan noogu jooga barnaamijkii maanta intii aan mar dambe kulmi doono nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaah.